Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibayaal, magacaygu waa Cabdulle Nadaara, waxaana soo saaraha barnaamijyada ka baxa kanaalka Hoyga Bulshada. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qiso cajiib ah. Imaan ibnu Xaniifa radiyallahu anhu ayaa maalin ka sheekeeyay qisadan. Wuxuuna yidhi sidan: anigoo ku jira safar dhinaca miyiga ah ayaan haraaday ama ooni qabtay. Dabadna reer miyi ah ama reer baadiye ah oo safarka markaasi ku kulanay ayaan ku yiri biyo uu ku sitay sibraar ama weel biyaha lagu shubto, walaal iga waraabi. Ninkii reer miyiga ah ayaa diiday inuu ka waraabiyo, isagoo sheegay ayuu yiri inaan ka iibsado. Waxaan ku yiri imisa ayaan kaa siistaa? Wuxuu igu yiri lacag gaaraysa 5 dirham oo markaasi aan haystayba. Maadaama haraad baan hayay, waxaan ku talagalay inaan lacagtaana siiyo 5 dirham iyadoo maalinkaasi aan haystay ayuu yiri lacag ba intaas. Muddo yar kadib ayaan raashin ama cunto aan sitay. Markii safarku nagu sii dhaaraday ayuu gaajooday, waxna waan ka siiyey, waa una cunay. Kadib wuu haraaday, wuxuuna i weydiistay inaan waraabiyo. Waxaan ku yiri ayuu yiri waan ka iibinayaa biyaha mar labaad 5 dirham ee markii ku siiyey lacagta biyahana waan ku waraabinayaa ee ii soo celi lacagteedii. Lacagtii ayuu ii soo celiyay ayuu yiri biyihiina waan ka waraabiyo. Walibana waxaan qaatay ayuu yiri sibraarkii uu markii hore isagu watay, maadaama markii hore uu iga wada iibshay. Dulucda mawduucan waxay tahay walaalkayga muslimka ah waxaa fiican in had iyo jeer dadaasho naxariista iyo waxbixinta, maxaa yeelay aadmiga ma baahi beelo. Kii aad xumaanta ku samaysay ama xumaysay ayaad haddana markiiba u baahanaysaa. Mar walba naxariis badnaataa, dadka guud ahaantooda yar iyo weynna aad u gargaartaa. mahadsanid daawashada mawduucan. Haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena, fadlan subscribe noo saar si aad ula socotid dhacdooyinka adduunkan ku cusub. mahadsanid. Fi amaanillah.